Cayni ma ahan magaceeda saxda ah, waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho iyada iyo aabaheed kaas oo ah waalid waqtigu uu ka hiiliyay wax dhaqaalahana aanan haysan si gabadhiisaan yar ay horumar u gaarto iyadoo ka duuleysa horumarinta nafteeda iyo tan waalidkeeda waxa isku dayday inay shaqo u doonato dhowr xarumood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin jaamacado, hoteelo iyo shirkado, balse arrinta la yaab kale waxay noqotay in gabadhan lagu dirqiyay in baahida shaqo ee heeso darteed inay ku bedelato galmo aan sharci ahayn. Markii ay ka diidana waxa ay weysay codsigeeda shaqo. Haddaba ha inooga sheekayso dhacdada koowaad ay la kulantay gabadhan oo aan u qarinay wejigeeda, ilaalinta sumcadeeda iyo khatar amni. arinta ugu muhiimsan waxa waaye maalin ayaan ka doontay jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya mid ka mid ah waxaan ka doontay shaqo nadaafad ah lagaga sheegay mid ka mid shaqaalooyinkaas qaybta u fadhiya shaqada dadka siiyo oo aan ka doontay lambarkiis gaar ahaan wuu isiiyay oo wuxuu idhaa shaqadu way banaan tahay bishiina waa $200 haddii aad u baahan tahay nadaafad waa soo gali kartaa waa midaan jaamacadii markaa tagay wuxuu igeeyay jaamacad aysan micnaha oo laga qabanaynin jaamacad laga guuriyo oo wax micnaha yaalino oo dhamaatay oo igeeyay wuxuu idhaa meesha ka shaqeynaysa waa halkan sida loogu shaqeeyaa adhaa meel micnaha oo wada bus waaye oo mar hore laga guuray mana micnaha ilama ah meeshan in shaqaale loogu baahan yahay sidee micnaha qof ma joogin cid leed aniga asaa joognay anigoo marka cabsanaya ilbaabka galay asiga wuxuu idhaa soo gal waa halkan oo idhaa markaasaan dhahay halkan qof kuma jiro waana meel oo wasakh ah qof oo micnaha mar hor ugu dambeysay waa sida u gala oo nafsideeda ku aaminaa markaas oo idhaa horta adiga shaqo ma rabtid aad horta soo galba hadaa cabsanaysid micnaha waaba iska bixi kartaabo shaqo kuuma hay okay anigoo sida soo cabsanayo salii nabiga afka iskaaga qabsada oo ilaahay garabka micnaha garab weydistay oo waan galay kadib markaan galay oo wuxuu idhahay 3 qol wuxuu ii furay oo eber oo baaba oo ii furay kadib uu idhaa waakina meesha ka shaqeynayso waa halkan nadaafada aad ka qabanaysid okay aan dhaa walaalkayga aada uu mahadsantaa dhaa shaqada maadaama isiisi aan dhahay okay markaas sidaas u soo baxnay oo aan imaanay qaybtii maxay dhahaan banaanka u soo socono markaas oo ilaahay istaag ay abaayo kale wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiina waa $200 laakiin adiga wili imaanan iga gaar bixin oo idhaay maxay tahay garbaxa sheegaysiisa dhahay shaqada si walaaltinimo ii siisee waxaana ku dareysay maxay tahay kadib uu idhaa garbax waa dareemi kartaa codsi iga tahay abaayo ina ii fududeysa rajeynaa codsigeyga ina ii sii sheegtay soo kama fiicnaa dhaa codsigaaga haddii lacagtayaa dhahay diyaar waa markaa shaqada bilaabo bisha ugu horeyso intaa ii soo raadisay waa kuu jira waa ku siinayaa markaasoo idhahay ma aho dhaa lacag inaadan lacag haysan waa ujeedaa laakiin wax muhiim ah haysa waxaas muhiimka kaa codsanaya ina isii sidoo idhaa waan dareemi kartaa okay haddee sidaas taa mayaan dhaa maribiyaan dhahay wax muhiimka waa dareemi kartaa wuxuu idhaa maadaama gabar tahay oo anigana micnaha wiil dhalinyaro aan ahay waxyaala lawaankan waa ogtahay u dhahay micnaha waana dareemi kartaa oo dhahay ina micnaha ii fududeysna rajeynaya waxyaalaha micnaha waxaa ka mid ah inaa micnaha aan wada galmoon ama micnaha waxyaala aan sameyno haddii aan raali ka tahay shaqadan diyaar waa beri baa soo gali kartaa. sidoo kale waxaa jirta dhagar kale oo ay la kulantay gabadhan laakiin ugu dambeyn ka badbaaday maalmaha kamid ah gabadha shaqo ka codsaday gabadhi marka waxay igu dhahday hotelkaas shaqo ka banaan wiilkan lambarkiisa ku siina wiilkan waco okay gabadhi markaan wacday oo lambarka i siisay wiilkiya micnaha wacday kadib wiilku wuxuu idhaa waa runtii qofta kuu soo sheegtay shaqo way ka banaan tahay hadaa soo galaysid adiga waa ugu dhahay kadib markii oo sidaas igu dhahay waxaan dhahay bishi waa imisa dhahay $400 idhahay marka $400 idhahay aad ugu farxay oo waan micnaa aad farxadeeda lama soo koobi karo oo waxaan dhahay maanta maasha Allah ilaahay ku soo warmay oo bishi $400 hada qaadanaysa nadaafad aad wallahi nolosha gurigiin uu buuxsan kartaa isdhahay kadib markii sidaas dhacday wiilku wuxuu idhahay waxa laga rabaa ID ku gashid meesha iyo waxyaala oo damiin ah laga rabaa oo idhahay okay insha Allah waa soo raadin doonaa shaqada laakiin qofbaha iga siin dhahay aniga aad ugu baahan dhahay
wiilku wuxuu ogaaday marka inaan shaqada aad ugu muhiimsanahay oo duruufana ay haystaan wiilku wuxuu idhaahay abaayo dhaa horta ana shaqale i weydiisiyo dhaa macnaa wixiina ima weysii weydiino dhaa meesha laga sameynayo sida akhbaarta ay tahay waxaan u jeedaa dhaa qof oo macnaa hami leh oo inaa shaqaysato oo daacad u tahay u jeedaa oo idhaa macnaa dad badanaa jiraan oo sidaan oo kasii baxeen oo dhaa okay shaqooyinka waxaa ka mid oo dhaa oo la qabanayo dhahay oo waxaa jira nadaafad waayo dhahay laakiin haddii macnaha soo heshiiso $10 aad soo gashid oo shaqada nadaafadda oo hoteelkan ka shaqeynaysid waa mara mustaqbalkaada meesha ku ba'ay oo maxaa ka mid ah in macnaha oo markaa oo macnaha qolka soo galaysid waa qolala aad hagaajinay aan nadiifin qof biyo u keenin nadaafada haysa inta laga taabto gadaal haga soo mar xabadka laga taabto kama hadli kartid oo idhaa oo sidaas yeelay marka waxa yeelayo dad oo xoodha dibadaha ka imaadeen iyo dad Soomaali oo macnaa oo dhaqankii ka tageen oo dhahay oo gabdho badan sidaas oo kale ku hayaan oo aan ka hadli karin oo dhahay kuwaas aan maanan keenin laakiin shaqada adaa macnaa aan ku keenuya oo dhahay marka wuxuu dhahay lama sidaas da ku gali kartid waakas oo macnaa gabarna waa taa oo dhahay hadii mustaqbalkaada barbtid oo dhahay in sidaas lagu taabto waxa la wadaagtay gabarta waa la wadaagay oo gabar ah ayaa dhahay hadii gabar tahay mayo dhahay mustaqbalkaada in lagu ciyaaro ma rabo arintan hadii meeshan soo gashidna oo dhahay waa mara macnaha oo xabadkaada laga taabto gadaal laga soo maray meesha ku ba'ay oo dhahay hatta oo dhahay had 400 ku shaqeynayo oo dhahay waxaaba lagu dhihi karaa oo dhahay dhacdadii koowaad ay la kulantay gabadhan haddii aan ku noqonno waxaa dib maalmo kadib u soo rogaal celiyey xiriirka ninka ka ah kaaba shaqaalaha jaamacadda ay ka doonatay shaqada kaas oo la wadaagay fariimo uu kaga dalbaday mar kale inay wada kulmaan una fududeyso galmada uu ka doonayay haddaba maxaa ku kalifay in shaqo ay raadiso gabadhan oo 19 sano jir ah wallaahi waxa igu kalifay arrimo dhowr ah hooyadeedii aabaheeda kala tageen hooyadeed waxay jirtaa Sanca jirtaa Yemen dagaal xaga ku haystaan aabaheegana waa macallin dugsi xaasoo leeyahay dabcan eedana waa la joogaa waan dareemi kartaa marka eedana joogtid xanuunka leedahay waxyaalahaas ay ugu kalifay iyo waxbarashadeeda sida uu macnaa ugu dhameysto iyo hooyadeeda sida uu ka caawiyo wallaahi iskuulka waxaan ugu baxay fasalka 8aad shaqo la'aanta iyo nidaam la'aanta dalka ka jirta ayaa keentay in dhalinyaro badan ay dalka ka tahriibaan sidoo kalena haween badan ay kala kulmaan marka ay shaqo u doontaan xarumaha dalka ka jira caqabado badan tani ayaana sii noqon doonta mid sii jiri doonta haddii aan wax laga qaban